Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaan ka hadlaynaa caadooyinka maskaxda burburiya. Caadooyinka maskaxda burburiya waxaan ka wadaa macnaha u geysta dhaawac weyn ama damage u geysta. Iska ilaali caadooyinkan inaad samayso si joogto ah. Waxay kuu keeni karaan inay maskaxdaada ay burburiyaan ama ay dhaawac weyn u geystaan. Waana khatar. Lambarka koowaad waa hurdo la'aanta. Haddii aad hurdo la'aan noqotid waqti aad u fara badan ama aad badisid dhafarka oo waqtiyo badan aad seexan, ruuxaantii waxaad wax u geysanaysaa maskaxdaada, waxaana khatar ah inay maskaxdaada dhaawac weyn u soo gaaro. Mana wanaagsana inaad noqoto hurdo la'aan wax ka badan 24 saac. Lambarka labaad waa dayacaadda maqalkaaga. Dayacaadda maqalkaaga waxaan ka wadaa inaad maqalkaaga dayacdo oo aad dhagahaaga aad u adeegsato waxyaabo aad u qaylinaya sida earphone-nada iyo muusigada aadka u dheer, ama adeegsiga earphone-nada waqti walba aad ku dhagaysato muusig codka dheer. Lambarka saddexaad waa xogta badan. Haddii maskaxdaada aad xog badan geliso aadan wax isbeysa u dhaxaysiin, ruuxaantii maskaxdaada waxaad u geysanaysaa dhaawac weyn. Maskaxda bini'aadamku waxay u baahan tahay in markay wax xog badan qaadanayso inay u dhaxaysiiso space ama waqti nasasho ay samayso. Haddii aad maskaxdaada xog badan ku ururiso maskaxda aadan nasiino geynin, ruuxaantii ma wanaagsana. Maskaxdaadana waxay u geysan kartaa dhaawac weyn. Lambarka afraad waa sonkorta xad dhaafka ah. Haddii aad isticmaasho sonkor aad u xad dhaaf u ah, ruuxaantii ma wanaagsana, waxayna damage ku tahay maskaxdaada. Lambarka shanaad waa dib u dhigidda. Haddii aad mar walba aad samayso dib u dhigidda oo hawl walba oo aad qaban lahayd waqtigeeda aad dib u dhigto, ma wanaagsana, waana caado xun. Maskaxdaadana waxay u geysanaysaa inay noqoto mid aan hawlkar ahayn. Marka dib u dhigiddu ma wanaagsana maskaxda bini'aadamka. Maskaxda waxaa u fiican inay wax walba ay waqtigeeda ku qabato. Laakiin haddaad tiraahdo hawl walba oo ku soo wajahda dib ugu dhig, mar kale ayaan qabanayaa, confuse ayaad ku noqonaysaa. Maskaxduna way ku wareeraysaa oo hawl ay qabato way garan waayeysaa. Marka hawlahaaga ama shaqooyinkaaga waqti u samayso oo shaqo walbana waqtigeeda qabo. Waxba ha samaynin dib u dhigasho. Lambarka lixaad waa hagardaamaynta. Hagardaamaynta ama xaasidnimada. Hagardaamayn iyo xaasidnimo way iska ag dhow yihiin. Haddii aad samaysay hagardaamo ama xaasidnimo mar walba oo joogto ah, haddii aad maskaxdaada badho hagardaamayn iyo xaasidnimo oo wanaagsana, maskaxdaada ayaana dhaawac u geysanaysaa. run ahaantii u fiirso dadka hagardaameeya ama xaasidnimada sameeya, maskaxdoodu sida ay tahay iyo sida ay u fikiraan. waxba ma dhaanti qof waalan oo kale ama qof mataqaanaa aan bini'aadan ahayn.